السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku rajeynaa inaad amni iyo amaan bashbashi barwaaqo aad ku sugan tahay meel kastoo daafaha dunida aad ka joogto. Muuqaalkan isaga ah wuxuu ku saabsan nin dhalinyar ah oo noloshiisii maareeyay guulo badan ka gaaray. Ninkan dhalinyarta ahi waa nin reer Canada ah. Isla sidoo kale waa nin markii dambe noqday qoraa caan ah. khudbad cajiib ah oo in badan caan baxday boqolaal dadii ay ka soo qayb galeen malaayiin qof in ay hawada ay ka daawadeen ayaa waxa uu ku soo bandhigay tijaabo cajiib ah oo uu la noolaaday. tijaabadaasi iyo waxa ay tahay sidii uu guusha uga gaadhay arinta iyada ah waxaad ku daawan doontaa xalqadan iyada ah ee daawasho wacan. ninkan dhalinyarta ahi waxa uu ka khudbadeynayaa goobta loo yaqaano TEDx ee caanka ah. waa goob iyo madal ay isugu yimaadaan dadyowga adduunka saameynta ku leh. ninkan isaga ah waxa uu ka waramayaa isaga iyo saddex nin oo kale oo ay saaxiibayeen oo waqtiga dhalinyar ahaa ayaa way wada fadhiisteen waxay ka tashadeen war nin waliba maxaad rabtaa inaad nolosha aad gaadho inta aad nooshahay. nin waliba wax buu qortay si wadar ahna waxay u dajisteen isaga iyo saddexdiisii saaxiibe kale 100 arrin oo muhiim ah oo ay tahay inay hirgeliyaan inta aanay dhiman. arrimahaasi waxay isugu jiraan wax macno leh oo fiican oo wanaagsan oo meel sare gaarsiin kara. waxa ay isugu jiraan waxyaalo aan dhaafisnayn iska xaraabaysi iyo dhalinyarnimo. 100 arrin waxa ku jiray inay kubadda la ciyaaraan madaxweyne Obama, waxa ku jiray sidoo kale inay boqorada Ingiriiska ay la kulmaan, waxa ku jiray inay dayaxa ay ka tagaan iyo waxyaalo kale oo inta ka sii badan. waxa ay bilaabeen dhalinyarta iyaga ah inay hirgeliyaan barnaamijkooda ay dajisteen ee ka kooban 100 hadaf oo waaweyn oo ay tahay inay sameeyaan inta aanay dhiman. waxa ay sameeyeen dadaal aad iyo aad u badan sidii barnaamijyadaas kala duwan ee 100 gaarsiisay ay ugu hirgeli lahaayeen. waxaanu sheegay ninkaasi inay 100kiiba ay u hirgaleen ay kuna guuleysteen dhammaan wixii ay qorteen. haddaba si aad noloshaada guulaad u gaadhid wuxuu ninkaasi ku talinayaa in aad samaysatid list ay tahay inaad samayso inta aanad dhiman ka hor. waxa uu tilmaamayaa waxyaalaha aad ka faa'iideysay in ay ka mid tahay kalsooni. markaad 100 arrin aad qabatid ama 50 ama wax inta ka badan waxaad ogaanaysaa inaad tahay qof wax walba qaban kara. halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa tiraba 4 arrin oo muhiim ah oo ka caawinaya inaad ku guuleysato inaad hirgeliso barnaamijyo kala duwan oo aad doonaysid inaad noloshaada aad qabatid. taladiisa koobaad waxa ay tahay dooro arrimo aad adigu jeceshahay agtaadana muhiimka ah. halka wuxuu ka wadaa inaanu qofku marnaba aanu dejisan waxaanu xiiseynayn inaanu hadaf ka dhigan waxaanu doonayn qor oo diyaarso hadaf aad jeceshahay inaad hirgeliso. wuxuu sheegayaa oo uu tilmaamayaa in ay waajib ay tahay si aad guul aad u gaadhid inaad qorato hadafkaagu ha ku qornaado. waxa uu sheegayaa inay waajib tahay inaad buug haysatid iyo qalin kaasoo aad ku qoraysid waxyaalaha aad maskaxda aad ku haysid. inta badanna waxa la sheegaa 40% ba hadafka la qoraa uu uga dhow yahay inuu guuleysto ka aan qorin. arrinka saddexaad oo ah talada iduna muhiimka ah wuxuu tilmaamayaa in dadka aad la wadaagto wixii aad qoratay. waxyaalaha aad qoratay waxay noqon karaan waxyaalo adiga ku gaar ah, sidoo kale waxay noqon karaan wax ay dadka kale ay ka caawin karaan. haddaba waxyaalaha tilada cid kale ka caawin karta adigu inay kugu koobnaanay dadka la wadaag oo meel walba kaga sheekay. waxaad arki kartaa qof hadhow ku caawiya hadafka isaga ahna ka saacida. arrinka afraad ee ugu dambeeya waa inaad noqotid qof madaale ah. mar walba ku dadaal inaad hirgeliso. haddii ay ku suurtagal weydo ku celi, haddii ku suurtagal weydo arrinkaas ku celi, haddii ay ku suurtagal weydo ku celi. bimacnaa noqo qof persistent leh, qof mar walba daba jooga hadafkiisa isaga ah. waxaan jecelahay intaanan muuqaalkan isaga ka bixin inaan ku tilmaamo sheeko kale oo taa kaba sii muhiimad badan. gabadh baa ka sheekeynaysa. gabadhu waa gabadh nurse ah oo kalkaalisa caafimaad. waxay sheegaysaa in ay ka shaqeyn jirtay cusbitaal weyn, cusbitaal lagu xanaaneeyo dadka da'da ah ee u sii dhow inay dhintaan. waxay sheegaysaa gabadhaasi inay wareysatay oo ay wareysi ka qaaday dad aad u fara badan oo saaran furaashkii geerida. markaas qof walba waxay weydiisaa hal su'aal oo kaliya. waxay tiraahdaa waa maxay waxyaalaha ugu badan ee aad ka murugoonaysid intii aad noolayd. nin waliba wax buu sheegaa, islaan waliba wax bay tilmaantaa, laakiin dhammaantood dadkaasi waxay ka sinaayeen inuu qof waliba uu ka murugeysnaa waxyaalihii uu qaban karayay ee aanu qaban intii uu noolaa. bimacnaa kamay murugeysnayn waxyaalihii ay qabteen. waxyaalihii aanay samayn bay ka murugeysan yihiin, waxyaalihii ay sameeyeen kama murugeysnaa. haddaba intaanad noloshaada murugadaasi aanay ku dambayn, inta aanad gadaal markaad oday weyn amaba islaan weyn aad noqotid aanad waxa weeye faraha dhexda ka qaneynin. hadda ayay tahay
inaad diyaarsato waxyaalaha aad rabtid inaad samayso ilaahayna uu kuu fudaydiyo inta aad nooshahay buugaaga soo qaado qalinkaagana soo qaado dabeedna hirgeli oo halkaa ku qoro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.